بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية وزيرك وحبرشة دولة فدرالك وزير كلا حلبانة لبضة أقل دوبابك الصوماليات نقل سو غيب قلي مناسبة دان إمام محمد يوسف علي إمانو هركعايو مسؤولين تا كلا قدسن بهذا وحبرشة مدحدا ركتا قناعسيقا مرت شرفتا كلا هير قرن هير قبولي هير دقمو دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وعمانتي شرف نوعه إنان هرتين سو استاغنو أنكو أذيجي بلشدو أوبانيد مد كمدا قيد سعود كي دايراي اللوغو جري هانا شدودا لوريقني وحدوكتين إن قيد سعود دير لوغو جرو سياسة دولة الصومالية أنا أي تحي إن أديجي بلشدا لو دويو دادكا أو سي هوسي لوغو سو دادجيو أديجي بلشدا حاجة معمول كودو marka uu yimaado heer hoose oo heer gobol ah kadibna uu soo dhaadhaco heer degmo waxaa suuragal noo noqonaya inaan si dhab ah u taabanno baahida bulshadeennu ay qabaan haddii ay ahaan lahayd xagga tacliinta ama waxbarashada iyo haddii ay ahaan lahayd xagga caafimaadka iyo qaybaha kale ee bulshadu u baahan tahayba waxaad ogtihiin walaalayaal geedi socod dheer ee lagu soo jiray ilaa haddana lagu jiro taasoo ah gobolka banaadir bulshada ku nool inay maamul hoosaadkooda ay kala wareegaan dowladda federaalka Soomaaliya siyaasadda dowladda hadda jirta ayaa horseed u ah suuragelinta arrintaas maxaa yeelay dadaalada la wado ama anigu aan wado iyo maamulka ila shaqeeya ama wasiirkooda xawado iyo maamulka la shaqeeya waa siyaasad ka turjumaysa dowladda Soomaaliya waa siyaasad la doonayo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir iyo bulshooyinka kale ee dalka Soomaaliyaba in adeegyada bulshada gacantooda la geliyo sida adeegyada bulshada in gacanta bulshada la soo geliyo dadaalkeedu u muuqdo ayaa sidoo kale waxa socda dadaalo kale oo hadda xildhibaan maasaradu ka dhawaajiyay oo ah maamulka xagga siyaasadda in lagu soo wareejiyo dadka gobolka Banaadir sida gobolada kaleba ay u awoodeen inay maamuladooda ayagu soo doortaan sidaa darteed walaalayaal dadaaladaas socda ayay qayb ka tahay midaan hadda aad maantay xaadirka u tihiin runtii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu labada gole ee baarlamaanka ka codsaday inay matalaadii siyaasadda gobolka Banaadir ay ansixiyaan
ayagoo ku mahadsan ayay cod aqlabiyada ku aqbaleen golaha shacabka Soomaaliya waad la socotiin maantay waxaan noogu xigi doona middan hadda munaasabadda saxiixa madaxweynaha oo aan rajaynayo iyadana inay mar dhow dhici doonto oo uu ku saxiixayo go'aankii golaha shacabka ee uu ugu codeeyey 13 senator ee gobolka Banaadir sidoo kale waxaan rajaynayaa inaad nagala soo qayb gashaan munaasabad kale oo sidan oo kale u dhacda oo waxbarashada anilada caafimaadka lagala soo wareegayo heer federaal aanu kula soo wareegayno heer gobol marka aan la soo wareegno arrimaha waxbarashada waa la wareegnay arrimaha caafimaadka waa la wareegaynaa sida aan idin sheegno sida aan idin sheegayba ama aan idin sheegaynoba sidoo kale matalaadiina siyaasadeed ayaan kala soo wareegaynaa dowladda federaalka ah si bulshada halkan joogta iyo kuwa la midka ah ee ayaan u suura gelin inay halkan yimaadaan ay u soo doortaan madaxdooda haddii aad madaxdiina doorataan oo shacabka gobolka Banaadir uu awoodi karo inuu u codeeyo qofka siyaasadda u hogaaminaya oo awoodi karo qofka waxbarashada u hogaaminaya inuu doorto oo awoodi karo qofka caafimaadka u hogaaminaya inuu doorto annagu uma baahnin inaan madax si ahaano oo hortiin aan sii taagnaano waxaa nagu filan qanaac ahaan in bulshadii Banaadir oo hoggaankooda dooranaysa aan gacanta u soo gelinay intaasaan nagu filan halkaas ayaa loo socdaa geedi socodku waa sidaas bulshada gobolka Banaadir waxaan ugu bishaaraynayaa anigoo rajaynaya wasiirka iyo ra'iisul wasaaruhuba inay faahfaahin doonaan waxbarashada aan maanta la wareegnay waxay noqonaysaa biidni illaahi alkariim waxbarasho aan ardayda lacag looga qaadin meesha aan u socono waa halkaas waxaa sidoo kale aan wax ka bedeli doonaa haddii aan leedmo tayada waxbarashada wasaaradda waxbarashada way joogaan maantay waxay noo sheegeen boqolkiiba 64 inay ardadii gobolka Banaadir ay ku dhaceen imtixaanka sanadkii la soo dhaaf kan hadda waa dhiman yahay waa soo socdaa taasi marka waxay ka turjumaysaa tayada waxbarashadu sida aysan u dhammaystirnayn waxyaabaha nagu dhaliyay inaan ku dhiirano ayay ka mid tahay taasi sidoo kale waxay wasaaradda waxbarashadu noo sheegeen iyo tacliinta sare tirakoob ama statistics la sameeyey inay ku ogaadeen da'da waxbarashada gaartay ee gobolka Banaadir carruurtiisa 12 kaliya boqolkiiba inay iskuul aadaan haddii 12 ay iskuul aadeen boqolkiiba meeqa guriga kuu joogta bal adigu isweydii waxa guriga jooga 88 waxna akhrin waxna qorin bulsho 88 boqolkiiba ay jaahiliin yihiin ma la horumarin karaa su'aashaas lama maqlamaya bulshadaas ma la horumarin karaa boqolkiiba 88 ayaa waxba akhrin waxna qorin
arrintaas waxaa noo soo baxda maya dadaal kasta oo la sameeyo waxa adkaanaysa bulshadaas inay horumarto sidaa darteed ayaan ku dhabar adagnay kuna dhiirranay inaan la wareegno waxbarashada kadibna aan waxbarashada dugsi hoose dhexe iyo sareba aan ka dhigno mid bilaasha oo aan lacag looga qaadin ardada halkaas waxaa ka baxaya cunuga inuusan aadin iskuul sababtoo ah waa garanaynaa sababta aan iskuulka loo aadin oo caa'ilaadka ama qoysasku ma awoodaan inay ciyaalka quudiyaan waxbarashadana ay ka bixiyaan marka quudintii ayay la dhacayaan cunug ama labo ayaa iskuulka loo diray 8 kale gurigay joogtaa taasaa marka ku tusinaysa sababta aan iskuulka loogu dirin ciyaalka haddii laakiin waxbarashadu ay bilaash tahay oo aan lacag laga rabin waxaan aaminsannahay carruur badan oo lacag la'aan aan iskuul u aadin inay iskuulka iman doonaan iskuulkuna wuxuu noqon doonaa mid tayo leh maxaa yeelay iskuulladii nambar badan ma aadin sida aan idiin sheegnay nambarka aadana tayo waxbarasho ama tayo aqooneed ma soo helin iskuulkuu tagaa waa baasaa iskuulkuu tagaa waa baasaa adinku ma aragteen muddooyinkan dambe arday dhacday oo la soo dhejiyey ma aragtay ma waxay ka dhigan tahay inay ardada dhan ay tafooda yihiin miyay ka dhigan tahay kama dhigna macnaheedu waxay tahay lacagaan ka helayaa asaguna ha baaso ha gudbo marka taasi marka waxay keentay 64% inay baasi waayaan oo ay dhacdo marka mas'uuliyadda nasaararo nasiin maysa inaan sidaas ku fiirsano waxaan ku dhiiranay markaan aragnay tirada yar ee iskuulka aada iyo tayada aad u yar ee kuwa iskuulka aaday ka soo hartay inaan annagu xaqiijinno tayada waxbarashada isla markaas aan xaqiijinno cunugu intuu guriga joogi lahaa inuu iskuulka aado sidaas ayaa ujeeddadu tahay madaxda iga dambaysa ayaa faahfaahin doonta walaalayaal waxaan doonayaa qofka awoodi kara inuu wax tabarruca bixiyo inuu gacan ka geysto waxbarashada ardayda Soomaaliyeed ku nool gobolka Banaadir taas macnaheedu waxay tahay haddii ciyaalka xaafadda jooga cunugaaga adigu aad ka bixin karto waxbarashada laakiin inta kale ayaa waxbarashada ka bixin karin bii'ada cunugaagu uu ku nool yahay waa bii'a aan waxba baran waayo waa kuwa la ciyaarayay oo la baashaarayo asiga isku bii'a isku da'ayeen sidaa darteed waxay ku yeelanayaan saameyn ba'an oo gaarsiinaysa inuu isagu noqdo ayagoo kale sidaa darteed waxaa fiicnaan lahayd inaad markaad cunugaaga ku filnaato kan walaalkaa ah ee kula darisa ee aan ku filnayn inaad ka bixisid si taas loo gaaro ayaa maamulka gobolka Banaadir wuxuu qorsheynayaa waxbarashada inuu bilaash ka dhigo laakiin midka aan bixin karin lacagtiisii macallinka waxaa laga soo qaadayaa midka bixin kara qorshaha sida lagu wado waa sidaas waxaan doonaynaa marka dareenkaas iyo aragtidaas inaad nala fahamtaan soona dhaweysaan nagalana shaqaysaan wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu